السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وأبوان حرقو dadku waxay ii yaqaanaan nabi difaace kan horay ii aqoonna maanta ha i barto waxaan diyaar u ahay inaan soo afjaro sheekadii maalmihii ugu dambeeyay ee social media qabsaday oo ahayd gabadhii guursatay wiilka oo loo gubay darteed Axmed Dawlo arrintii sidaa ahayd waxaan maqli jirnay aas qaran baan maqli jirnay arrintii waa la siyaasadeeyay oo waxaa loo dhigay aroos qaran arrinta noocaas ahayd gabadhii iyo wiilkii caasiga ahaa oo haddii ilaahay ku idmahayo oo wiilkana adeerkiis loo gubay gabadhana hooyadeed iyo waalidiinteed ay u xirxiran yihiin baa la siyaasadeeyay haddii ilaahay ku idmahayo 4 bisha 10 2018 waxaa la iclaamiyay in hotelkan SYL lagu dhigi doono arooska qaran waxaana loo bixiyay gabadha iyo wiilkaas lamaanihii qarniga anuguse waxaan aaminsanahay inay tahay dhacdadii ugu xumeed ee qarniga ee soo marta abid Soomaali meel oday lagu gubay islaantii maamada ahaydna ay xiran tahay la leeyahay waa farxadii adduunka haddii ilaahay ku idmahayo anugu wax badan kama fahmin waxaan rabaa maanta inaan soo afjaro waxaad ogtihiin Soomaaliyay qabiil dhibaatada uu noo geystay baad ogtihiin waxaad ogtihiin in guryaheennii iyo ilmaheennii iyo ilaahay haatan ay ku maqan yihiin waxaad ogtihiin 30 sano qabiil in uu nahaystay maantana ay rabaan siyaasiyiin dana gooniya leh oo waxa weeye haddii ilaahay ku idmahayo inay isu kaaya diraan waa soo dhaweynayaa wiilku hadduu jareer yahay waa muslim waa soo dhaweynayaa waana la isguursan karaa laakiin waxa social media maalmihii ugu dambeysay aad arkayseen in waxa weeye beesha reer jareer weyne waxay soo bandhigeen cudud dhan adigu ilaa 70 qori bay soo bandhigeen waxa weeye waa dagaal la horinaya u jeedaan abgaal waa dhaarteen waxa weeye social media dhaar ka wadaan wiilkii gabadha la dhashay South Africa uu joogo wuxuu leeyahay gabadhaydu waxa weeye siyaasiyiin ma bixin karaan waxa weeye nin baan ku xiray waa soo dhawaaqaya wuxuu leeyahay asna meyd qaran baa la sameeynaya buu leeyahay haddii ilaahay ku idmahayo murusadana waxa weeye u daala dhacayaan inay islaantii xabsiga ka soo saaraan ayaguna waxa weeye kitaab bay ku mareen haddaba waxaan u jeednaa anigu ka abwaan xarraga ahaan waxaan u jeedaa in qabaa'ishii Soomaaliyeed mar labaad la isku hurinayo waxaan u jeedaa in dab waxa weeye laga dhaxshidayo ummadii Soomaaliyeed mar labaad waxaan u jeedaa mugdi aan ka soo baxnay in gadaalna la kugu celinayo waa la isguursan jiray laakiin ma arag guurkan sida loo buunbuuninayo guur waxa weeye haddii ilaahay ku idmahayo sida loo buunbuuninayo ma arag waxa weeye heerkan guur la gaarsiiyay gabadhii wiilkii waxa la dajiyay hodheel $150 one night hal habeena waxa weeye 10 bisha afraad 2018 waxaa la rabaa in la dhigo aroos qaran baa la rabaa in la dhigo waxay taasi waxa weeye waa isku dir waxa weeye laga shaqeeyo umad Soomaaliyeed haddaba xildhibaanada sida gaarka ah arrinta uga shaqeeyay waxa koow ka ah xildhibaan Cabdi Shira Jaamac Jooqle oo loo yaqaano ciyaar jecel waa nin daarooda maanta waxaan diyaar u ahay anigoo ah abwaan xarrago waxaan diyaar u ahay inaan soo afjaro arrintan social media ku soo cusboonaatay oo waxa weeye la rabo qabaa'ishii Soomaaliyeed in la isku diro la rabo adeer maanta waa soo afjarahayaa mana doonayo raallina kama ahi mana soo dhaweynayo qabaa'ishii Soomaaliyeed maanta in la yiraahdo tanaan laangaab iyo tanaan laandheera oo la isku diro oo waxa weeye dadkii meydku dhax yaalay musiibadu qaran ay dhax taalay waxa weeye la leeyahay haddii ilaahay ku idmahayo aroos qaran ha loo sameeyo waxaa loo baahnaa marka ugu horeyso in baahida la xalliyo in haddii ilaahay ku idmahayo dadka waxa weeye dhibaatadu kala gaarta la xalliyo in ilmihii 12 ilmood uu ka tagay Axmed Dawlo jannadii Allah ugu bishaareeyo waa marxuum aad baan uga xumahay sida xun loo gubayna in ilmihii noloshoodii meel la saara ayay ahayd siyaasiyiintu dana gaaray wataan igu sawir weeye
waxaa dhacday in haddii ilaahay ku idmahayo wiilkii iyo gabadhii inta hotel lagu xaraystay la yidhi aroos qaran baa loo dhigahayaa arrintu daacad ma ahan laakiin maantaan soo afjarahayaa ka abwaan xarraga ahaan maantaan soo afjaray wax allaala iyo wixii qabiil waxa weeye haddii ilaahay ku idmahayo in lagu dagaalamo la rabay waa soo afjaray axmed dawlo wuxuu ka dhintay axmed dawlo wuxuu ka dhintay marxuumkii la gubay baan ka hadlahayaa 2 xaas buu ka dhintay iyo 12 cunug ninka hawshaan waxa weeye baarlamaanka ka codsadayna waa Cabdi Shire Jaamac Jooqle ciyaar jecel weeye ninka arrintan codsaday haddii ilaahay ku idmahayo wuxuu u codsaday xildhibaan Cabdi Shire Jaamac Jooqle in loo sameeyo aroos qaran buu codsaday anuu tacsiiqa waxa maqli jiray aas qaran baa maqli jiray aroos qaran buu yahay loo sameeyo wiilkii gabar la dhashay wuxuu yiri tacsiiq qaran baa la dhigayaa haddii ilaahay ku idmahayo aniga waxa la yiraahdaa abwaan xarrago waxaa Soomaalidu ay yaqaanaan nabi difaace waxaan ka soo jeedaa qabiilka habar gidir saacad reehilowle xildhibaan Cabdi Jaamac Jooqlana waa nin daarooda tol iyo qaraabo haddaan ka dhashay aniga asaga waxa weeye labadii xaas haddii run la sheegayo weeye labadii xaas oo Axmed Dawlo uu ka dhintay oo beesha reer Jareeweyne ka soo jeeday dumaal qaran la kugu sameeyay aniga asaga dumaal qaran anugu waxa weeye wallaahi billaahi tallaahi kaftan ma ahan waa iga xaqiiq Soomaali waa kala badbaadaysaa anugu hawiyaan matalahaya naag waxa weeye dumaasha wax u galahaya Soomaali inay kala badbaado waa la isku diray abgaal waa malabsanaya beesha reer Jareeweyne cudud bay soo bandhigtay waxa weeye mursadana waxa weeye waa hubaysan yahay aniga iyo Cabdi Shire Jaamac dumaal qaran hana loo sameeyo waliba asagu waa nin siyaasiya waa iga jeeb weyn yahay hallo naagta ilmaha badan la siiyo anu waxaan ballan qaadayaa Cabdi Shire Jaamac haddii waxa weeye uu guursado oo uu dumaalo oo ilmahaas uu kariyo Axmed Dawlo waa haday daacad ka tahay wadaniyadu haday daacad ka tahay hadduu dumaalo oo ilmaha uu kariyo waxaa ballan ku qaaday naagta kale in aan guursado oo dumaalo oo ilmaha la kariyo fadlan hala sheer gareeyo muuqaalkan Cabdi Shire Jaamac xildhibaan Cabdi Shire Jaamac loo geeyo wallaahi billaahi tallaah laga aamusi karin arrintan waxa weeye anaa soo afjaray Soomaali waxa weeye maanta wixii ka dambeeya qabiil raali kama nihin mana rabno mana doonayno waxa weeye anu horta talkan ka dhashay iga qaadanayaan arrintan u malaymayo arrintan iga qaadanayaan laakiin wallaahi billaahi tallaah inaan bareeg u qabanayn xildhibaan Cabdi Shire Jaamac iyo aniga asaga haddii run la sheegayo ay waxa weeye daarood iyo hawiye iyo jareer ay isguursan jireen waxa weeye maanta soo afjaraynaa ummadda sidaan dhiigeeda u badbaadin lahayn baan ka shaqaynaynaa dumaal qaran hana loo sameeyo labadii naagood oo ka tagay Axmed Dawlo waxa weeye naagtii weyneedna hala siiyo Axmed Shire Jaamac waxa weeye hala siiyo Cabdi Shire Jaamac hala siiyo midda yarna aniga waxa weeye anaa dumaalahaya dumaal qaran hana loo sameeyo hala sheer garay Cabdi Jaamac u geeyo muuqaalkan inaan go'aan waxaan qaato wallaahi waa go'aan geesinimo leh wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inuusan qaadan karin go'aanka aan qaatay qof kasta dhanwi go'aanka anugu aan qaatay qof kasta ma qaadan karo waxaan diyaar u ahay dumaal qaran aniga iyo Cabdi Shire hadduu Cabdi Shire guursado oo uu dumaalo islaantii Axmed Dawlo ninkii la gubay oo la jarjaray oo ilmahaas maqasha oo masaakiinta oo baahan waxa weeye uu daryeelo anna waxaan ballan qaadayaa inaan dumaalo midda kale oo inta kalena xalaaneeyo waa ballan asagu waxa weeye daarood ha matalo anna hawiyaan matalayaa Soomaali has dhax gasho waa haddii laga rabo Soomaalinimo haddii laga rabo waa haddii wadaniyad waxa weeye laga rabo haddii ilaahay ku idmahayo la kala badbaadiyo ummadan dhiigooda oo isku socdo la kala badbaadiyo Cabdi Shire Jaamac xildhibaan Cabdi Shire Jaamac Jooqle oo loo yaqaano ciyaar jecel iyo anigoo abwaan xarraga nabi difaace tol iyo qaraabo haddaan nahay waxa weeye hana loo sameeyo dumaal qaran ilaa waa maqalna moogta aroos qaran tacsi qaranna wiilkii gabadha la dhashay yiri waxa weeye waa dhacaysa haddii gabadha wiilka la siiyo South Africa ka soo hadlo annaguna dumaal qaran baan qaadanaa aniga Cabdi Shire bal waxa la ogaanayaa qofka Soomaali jecel baa la ogaanayaa fadlan hala sheer gareeyo qofka Soomaali jecel baa la ogaanayaa aniga ninka xildhibaanka anu nin shacabaana masaakiina haddii ilaahay ku idmahayo waxaana kafaalo qaadi karaa labadii reer oo uu ka tagay ninka la yiraahdo Axmed Dawlo waa haddii Cabdi Shire Jaamac ololihii ahaa waxa weeye ololihii ahaa aroos qaran hala sameeyo iyo nuhaadi aan ka joogi weyna maalmahan oo dhan iyo waxa weeye mashruuc waa laga dhigta mashruuc waxa weeye cid taasi u taala
ولا سلسة صورها يا التعسي أطالة التعسي أطالة بلا سلسة صورها يا التعسي أطالة بلا ليه يا هرتنا وحال لو قمنا يا أراس قرن بقول يا كنتن دولار والله بالله تلا لو سخدا أراس كلا جيي ويلك يا gabadha waxa weeye $150 baa lagu seexdaa arooska la geeyay hotelka la geeyay afarta bisha 10aad 2018 waxa la iclaamiyay aroos qaran meeqa ku bixi karta magaca ilaahay baan ku inaa been ku sheegin hadaan qiyaasay $100,000 ka badan baa ku bixi karta ilmaha yar yar kaana $20,000 maanta waxbay u gashaa alaa xaal anu waxaan aaminsanahay tolka inay raalli ka noqonayaan haday waxa weeye Cabdi Shire iyo tolkiisa ay raalli ka noqdaan in la dumaalo هذا والله كتنين سنيقهين والله وبالله وطلعي ويقضعت هدو حلدبان عبد شرات شغل وبلان قادو إنو الدماله ناقيه وحوي وكد انت أحمد دولو نيكي مسكين كها جنة الفردوس الله كورابيه أو توفيق صدح اللوغو قبي هدو بلان قادو إنو هدي لا يكويد ما هيو الدماله أنا وحان بلان قادو هي حاسك اللبادو أحمد دولو إنو وحوي الدمالي دونو أنا أبوان حرقان نبي الدفاعات وحوي هلا شارقرايو هاي sheekadu nahi bay baratay waxay baratay faataa baqlayn iyo halagaasi sheego waxay baratay ugu sawir waxay baratay dhaca bay baratay adeer macaane runta aan ka sheegno Soomaali waa la isku diray arrintaani waa arrin siyaasadaysan arrintaani waa arrin la rabo in waxa leeyahay lagu dabar jaro qabiil waxa weey Ilaahay baa qabiil laga soo baxshay mana doonayna maantay waxa weey kana cunsuriya iyo kan laba guursado iyo kana kida iyo isma guursano iyo isma soo galno been weeye adeer macaane hawshan ninka bilaabay oo waxa weeye ilaa min alif ilaa ya waday oo isla soo sawirahayay oo baarlamaanka waxa weeye ajandaha waxa weeye kaga dhigtay waxa weeye aroos qaran loo sameeyo waa xildhibaan Cabdi Shire Jaamac Jooqle anigu abuu xaragaa marka waxaan leeyahay hadii ninka xildhibaan Cabdi Shire hadii uu raali waxa weeye ka yahay macnaha in la isguursado ay diintu qabto anigu waa qabto diintu way qabtaa waa ogahay qof muslim oo gabar ku soo doontayna in loo diiday diintu ma qabto laakiin waxaan rabnaa dhaqanka ummadda Soomaaliyeed in aan isdhaxgelinaa rabnaa ceebtii rabta iyo jaa'ifadii rabta waxa weeye Cabdi Shire waxa nooga timaadee adeer dumaal qaran diyaar muuta dumaal qaran diyaar ma u tahay haddii kale naga daaya sheekada musalsalka dadkan masaakiinta ayaga aqday ilmahan ayaga baaba'ay reerahan haddii Ilaahay ku idmahay ayaga naftu haysaa in waxa weeye koob shaah inta lagu dul dirsado ama la isla soo sawiro waxa weeye oo la yiraahdo waxa weeye waa lamaanihii qarniga faataa baqlayntaas waa laga tagay adeer macaana dumaal qaran baa meesha taalla waa aniga adiga waxaan rabnaa Soomaali waxaan rabaa maantay inay ii arkaan inaan waligay runta ka hadli jiray wallaahi oo billaahi oo tallaahi Cabdi Shire Jaamac haddii ay dhab ka tahay waxa weeye in aan dadka la midabta koorin haddii ay dhab ka tahay waxaan u soo jeedinayaa aniga iyo asagaba in dumaal qaran naloo sameeyo dumaal qaran haddii Ilaahay ku idmaayo dumaal qaran in naloo sameeyo dumaal qaran إلا وحوي هدي حماة سلل وحوي ذاتك وحوي أي كوتشري شرتي ما تينا كسرنا ربنا أدو أذاب وحوي نسياسي ولا عيك صاقشة أنا وحنا إنه وحوي شعبها هاي نور المعلومات كيسان كبنين لكن جالس جوان قاتانها نشعب وحنا هاي هدي لا يكويد ما هي نور المعلومات كيسان كبنين لكن جالس جوان قاتانها هاي ولما ناقته المها بدل الأذان القصينا هي مدة المها يرنا وحوي أنا وحوي دمالها هي وهدي Soomaali sharaf iyo cisi iyo karaamo laga rabo cisi iyo sharaf iyo karaamo hadii Soomaali laga rabo arintan magaalada Muqdisho laga wado war hooy boonbooniska laga daayo war qabaa'ishan yaan la isku dirin war 80 waxa weeye oday oo beesha reer jareer weyna ka soo jeeda shalay shireen abgaal waxay ka dhaxwadeen social media waa la arkahayay murusada waxay wadaan waa la arkahayay war ilaahay inta ka cabsano qabiilka aan ka dayna dadka war arintan la siyaasadeeyay wallahi waxa laga yaabaa hadda nin baa la gubay waxa laga yaabaa dad badan inay ku dhintaan aan badbaadino dhiiga ummadda Soomaaliyeed anigu anoo badbaadinaya dhiiga ummadda Soomaaliyeed wax kale uma awoodo ninka hawshan kiciyay waa xildhibaan Cabdi Shire Jaamac Jooqle weeye ninka hawshan kiciyay ninka hawshan waxa weeye laga hoyan waayay oo laga harsan waayay oo igu sawirta daldalahay maalmahan oo dhan waa Cabdi Shire Jaamac Jooqle adeer macaane aniga iyo adiga
aniga iyo adiga dumaal qaran baa naloo samaynahayaa labadii naagood oo uu ka tegey ninkii majareerka ahaa oo masaakiinka ahaa oo la gubay labadii naagood oo uu ka tegey waxa weeye adugu ha midabta koorin anugu ma midabta koorhaye labadanna waxaa ka kala dhalannay laba cid baan ka kala dhalannay adugu daarood baa taannaha wiyaanaha waxa weeye haddaan maanta labadeennaan dumaal qaran samayno oo waxa weeye aan reerkaas waxa weeye annagu waxa weeye aan u gurmanno Soomaali waxa weeye waa iska guursanaysa raxan weyn baa iska guursanaya biimaal baa iska guursanaya galladii iyo bagadii baa iska guursanaya wadeejeen baa iska guursanaya jareer baa iska guursanaysa haddii Ilaahay ku idmahayo inta la midabta koro dhan baa is guursanaysa inta waxa weeye laandheeraha lagu sheegayo waahay laakiin waa bilaabaynaa ninka aan ka hoyo weyna soo adiga maahan dumaal qaran baa naloo samaynayaa dumaal qaran waxa weeye naagta ilmaha badan la adaa lagu siinaya waliba anu midda ilmaha yar la siinaya ilaa tawar badan ma hayaada iga lacag badan hadii Ilaahay ku idmaayo fadlan muuqaalkan u geeya muuqaalka arrinta sooma soo afjarmin Soomaali weynay sooma soo afjarmin haddaad maanta inta ka dambaysa social media waxa weeye ciyaal baa isguursaday aroos qaran faataa baqlayn qaran haddaad maqasaan waxa weeye sida eeyihii kabta soor ii saara nin walba waa cararaya wallaahi san ogolayn iyo billaahi iyo tallaahi anugu ma jecli in qabiil la midabta kooro laakiin qalbigiisa wixii ku jiraan ogahay nuhunaada dadka la maqashiinayaa dumaal qaran baa naloo samaynayaa aniga Cabdi Shira Jaamac Joogle dumaal qaran ha naloo sameeyo ninka la gubay labadii xaas uu ka tagay waxa weeye ha naloo guuriyo asagu waxa weeye naagta weyn ha la siiyo ilmaha waxa weeye ha ku meesha waxa weeye ilmaha jareerta meesha ha ku koriyo anigana kuwa yararka baa meesha ku korinaya haddii meesha cadaalad iyo run laga rabo waay laakiin igu sawir hadday tahay ilma adeerayaalow yaa dadka la isku dirin war dadka yaa la isku dirin war ilma adeerayaalow dadka yaa la isku dirin arrintaani dadka waxa weeye wallaahi billaahi tallaahi baan ku uri waa la islaynayaa waxaana u sababa dadka arrintaas siyaasadeeyay baa u sababa waa hoyan weyn oo harsan weyn aroos qaranay baraqay faata baqlaynay xildhibaan Cabdi Shira Jaamac Jooglaan la hadlahayaa aniga adiga dumaal qaran baa naloo samaynayaa ninka maskiinka ah oo la gubay naagiisaan dumaalayna haddaad run sheegaysid adiga aroos qaran ku waashee xaguu aroos qaran yaallaa aas qaran baa maqli jirna tacsi qaran baa taalla wax aan la arag oo la maqal baa Soomaaliya ka dhacay ruux baa nolosha lagu gubay haddii Ilaahay ku idmahayo markaasaa waxa weeye $150 baan dajinaynaa xildhibaanadu ajandaha ku dar xildhibaanadu waxa weeye haddii Ilaahay ku idmahayo ma waysan fakarayn arrintaana arrin dawlad wax ka qaban karta ma taha maahan waa arrin loogu talagalay odayaal inay galaan waxa weeye haddii Ilaahay ku idmahayo garta waxa weeye mideeda kale gabar hooyadeed xiran tahay walaalkeedna leeyahay waxa weeye mayd qaran baa la samaynayaa mayd qaran baa la dhigayaa reebtiyaasheedna waxa weeye qaarna ay xiran yihiin qaarna ay dhaaranayaan wiilka qabiilkiisana ay hanjabahayaan xaguu arooska qaran ka dhacaya ii sheega gabadhu maxay dhalaysaa alla ii sheego waayahay arooska qaran ha la dhigee aniga ninka la yiraahdo Cabdi Shira Jaamac Joogle dumaal qaran ha naloo sameeyo Soomaali weynay muuqaalka ha loo geeyo inta wax garanaysa hadalkaas waxa maanta iga keenay wallaahi waa hadal geesinimo leh go'aan baan qaata maantay wax kasto igu qaadato tolkay dhagax haday igu raawiyaan way magaalada iga saaraan reer tolkay haday iga saaraan xataa waxa weeye waa u sabraya waxa iga go'an xildhibaan Cabdi Shira Jaamac Joogle haddii waxa weeye dumaal qaran uu ogolaado oo naagta weyn ilmaheeda waxa weeye ilmaheeda la siiyo oo uu ka soo baxo xuquuqdeeda anna tan yar inaan ka soo baxo oo aan dumaalo oo aan guursada igu ballan oo igu axdiyo Ilaahay igu ogyahay oo Ilaahay igu ogyahay dad moodeen kaftan inuu yahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi badbaadada ummadda Soomaaliyeed baa saa u yeelahaya qabaa'ishan la isku dirahayo iyo dadkan la isku laynahayo hala daayo hadday sheekadu runtaana waxa weeye dumaal qaran aniga Cabdi Shira Jaamac hana loo soo istaajiyo diyaar baan u ahaan ugu hana loo soo istaajiyo kama laan gaabsani aniga waa nin daarooda anna nin habar gidiro waxaana saacado reeylowlaa kama laan gaabsani nin daarooda weeye anuguna waxaana nin habar gidira oo sacada oo reeylowlaa ahaan waxa weeye waxaan diyaar u ahay inaan badbaadiyo ummad la isku laynahayo oo qabiil la isku laynahayo Cabdi Shira Jaamac adeer haddaad diyaar u tahay dumaal qaran waxa weeye live-ka soo fariiso aniga adiga weeye qof kale xataa maahan aniga adiga weeye haddii kala soo maahan ummaddan la baabi'inayo walaalayaal waxa laga daayo ummaddan la leeyahay haddii Ilaahay ku idmahayo la leeyahay waxa weeye haddii Ilaahay ku idmahayo
هلا سكول لايو ولا ليالو نجا داية من فضل نجا تشوتشيا والسوشيال ميديا مالمها ودن waa aamusnaa waxa ka socdo wallahi waa ka jawaabi waay waxaan uga jawaabi waayay wallahi waa waxaan arkay xumaato weeye waa xanuun waxa weeye ummadda Soomaaliyeed la rabo in lagu baabi'iyo adeer qabiil ma rabno ma doonayna qabiil ma rabno qabiil laga daaya waxaan xasuusanaa isgoysyada magaalada Muqdisho ayadoo la kala talaabi karin wallahi baan ku yiri isgoysyada magaalada Muqdisho ayadoo la kala talaabi karin baan xasuustaa fadlan hala sheer gareeyo haloo geeyo waxa weeye hawshu hadday dhab tahay oo aysan siyaasadaysnayn aniga Cabdi Shira Jaamac Jooqle xildhibaan Cabdi Shira Jaamac Jooqle dumaal qaran baan waxa weeye hana loo dhigo dumaal qaran aroos qaran bay baratay dumaal qaran hana loo sameeyo dumaal qaran yalla sheer gareeyo qabiyaalad annagu diyaar uma nihin hala sheer gareeyo loo geeyo wax allaala iyo wixii Soomaali aqli u saaxiiba hadalka anugu maanta aan iri iskama orane fakar baan ku soo iray adeer runta aan isku sheegno hawshaani waxa weeye asbuucyadaanay socotay maalmahan oo dhan bay socotay waxa weeye social media waa ka hoyan weynay waa ka harsan weynay waxa weeye haddii ilaahay ku idmahayo arrintu waa la siyaasadeeyey dad baa la rabaa in la isku laayo qabyaaladna waa diidnay haddaan nahay dhallinyaradii Soomaaliyeed anigoo waxa weeye sharafka ummadda Soomaaliyeed ilaalinaya aniga iyo xildhibaan Cabdi Shira Jaamac Jooqle adeer dumaal qaran hana loo sameeyo ninkii xamar lagu gubay laba naagood buu ka tagay 12 caruur iridda lagama istaagin naagta weyn iyo caruurteeda Cabdi Shira Jaamac Jooqle ha loo guuriyo waa haddii ilaahay ku idmahayo midda kalena waxa weeye anaad igu ogtihiin wallahi ana guursanaya hadduu Cabdi Shira Jaamac guursado naagta weyn oo Axmed Dawlo ninkii la gubayo masaakiinka naagtiisa weyn waxa weeye ilmaha masaakiinta meesha ku dayacan hadduu waxa weeye ninkaasi xanaaneeyo tan kalena aniga igu duuba faataxada noo maro anigu faataxada ha laygu maro ninkaas haddii faataxada laakiin muhiimaddu waxay tahay waa in Cabdi Shira Jaamac uu ogolaadaa ciyaar jecel waa inuu ogolaadaa hawshaan nahi iyo ha layga sii sheego iyo faataa baqlayn waa dhammaata kaliya maahan maca xildhibaanada kugu raacsan hawshaan kulli waxa weeye hawsha horta ninka bilaabaa tahay ololeynayo isku soo sawiray waxa adiga ku soo qabtay ninka ugu horeeyo hawshaan bilaabaa tahay laakiin waxa weeye xildhibaano badan oo kugu taageersan baa jira ayagana waxa weeye haddii ilaahay ku idmahayo waxa weeye ninkii geesiya go'aanka qaatay maanta aniga qaato ninkii geesiya waa ninkii raba Soomaali inay badbaado waa ninkii raba qabiil inaan gadaal loogu laaban waa ninkii raba haddii ilaahay ku idmahayo in dadkan aan la isku goyn waa ninkii wallaahi billaahi tallaahi waa la midab soocay waa la midab takooray been weeye been cidda aan ka dhashay cid ka faan badan lama arko cidda Cabdi Shira Jaamac Jooqle uu ka dhashayna cid ka faan badan lama arko aan u bilowno ummadda Soomaaliyeed inay isdhex galaan car aan u bilowno hadday run ka tahay guursan naagta weyn tayaraan guursanayaa dumaal qaran hal loo sameeyay adiga oo ummadoo dhan ay ogaadaan dumaal ay ogaadaan hana loo sameeyo hawshaani waxa weeye anaa maanta soo afjaray waxaana igu taqaanaan wanaagga waxa weeye wallaahi wanaagga igu taqaanaan xumaata iguma taqaanaan qabyaalad maahay anugu qabiilka magaciisa waa sheegaa oo maxaa u sheegtaan waxa weeye ula dagaali maysaan Soomaaliyey laakiin runtaan qabiilka ka sheegaa xildhibaan Cabdi Shira Jaamac Jooqle iyo anigoo abwaan xaragaad u taqaanaa nabi difaace dumaal qaran hana loo sameeyo hadday arrintu waxa weeye sax tahay afarta bisha 2018 aroos qaran hala sameeyo hala iska sameeyo laakiin waxa ku xigta waxa weeye dumaal qaran baa ku xigta taas lagu bishaaraysto aroos qaran la dhisaa dad baa la isku goynaa waxa weeye cid taxsi u taal waxa weeye wiil dhaaranayo dhahay meed qaran baa la sameeynaya waxa weeye 30 wiil dad ka badan baa soo galay
soddon wiil dad ka badan baa soo galay social media oo abgaala oo ka xun arrintan waxa weeye anugu wiil iyo gabar muslimiin oo isguursaday marnaba waxa weeye ma diidayo waxa weeye mana mucaaradayo diinta islaamka wax allaala waxay goysay waan ku qanacsanahay raalina waa ka ahay waan ku qanacsanahay raalina waan ka ahay wax alla waxay diinta islaamku goysay ma garatay wax allaalay waxay diinta islaamku goysay anugu waan ku qanacsanahay raalina waan ka ahay laakiin waxaan diidanahay ma taqaan arrintan waxa waa laga badbadiyey arrintan waxa weeye la siyaasadeeyey oo laga badbadiyey oo waxa weeye wixii la raba laga sheegay maantaan soo afjaray warkayga qaada u geeya cabdi shire u geeya dadka buunbuuninahaya aroos qaran dadka u geeya carwaa ninka dumaal qaran u soo istaagi karaa anigu diyaar baana waa ninkee carwaa ninkee fan iyo faataa baqlaa idinku jira ummadda yaan laisku goyn qabaa'isha yaan laisku dirin ilaahay ha laga cabsado dhiigga muslimku waa xaaraan lama ogola aayad quraana diidaysa in dhiig muslim xaaraan yahay shan balaayooyin baa ku dhacaysa wallaahi billaahi tallaahi qofkii qof muslima ka soo dilaa in kas la isku dilana waa imaanaysaa waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima waa shan balaayo in kas la isku dilaa waa imaanaysaa hawshu yaan laga badbadin wiil iyo gabar waa isguursan jireen laakiin waxa weeye aroos qaran waa waray faataa baqleenay ha laga daayo hawshaan ninkii dhintay oo sida xun loo gubay arrintiisa ha la galo waxa weeye ilmahaas agoonta oo ilaah haddii ay ku idmahaya dayacan oo dhibaataysan oo waxa weeye baahan oo waxa weeye beeri haraglaha oo meel ay aadaanaysa garanayn oo aabbahood waxa weeye duhurkii la gubay waxa weeye noloshooda ha la kafaalo qaado aysan ahayn soo maahan ha laga daayo arrintaas faataa baqlaynta runta galabta waxa weeye wallaahi billah wali horta run baa igu taqaaneen anuu sankaas haddii fargaata layga gelinaya xataa runta ka leexa maayo xildhibaan cabdi shire jaamac jooqle cayaar jecel iyo anigoo ah abwaan xarago nebi difaace waxaan diyaar u nahay dumaal qaran inna loo sameeyo ninkii la gubay naagihiisii labuu ka tegaya midda ilmaha badan haysataa asaga ha loo guuriyo asaga iga lacag badane siyaasi weeye annagu nin shacaba masaakiin aan ahay midda yarta aan la daala dhacahayaa midda yarta baa la daala dhacahayaa adeer run baa la rabaa runtaa laysku sheego adeer runtaa laysku sheego fiidiyowgayga qaada u geeya tusa waxa weeye ha ka soo jawaabo in ummadda soomaaliyeedna ha ka soo jawaabto anugu waxaan diyaar u ahay dumaal qaran waa kee ninka u soo istaagi karaa waa kee dumaal qaran baan diyaar u ahay fiidiyowgayga ha loo geeyo dadka hawshaan wadaa fiidiyowgayga u qaada u geeya tusa walaalayaalow u qaada u geeya tusa ha arkaan ha daawadaan hadday hawshu waxa weeye sida ay ku socotaa laga beddeli waayo qabaa'il islaynaysaan u jeeda anugu abwaan soomaaliyeed baan ahay ummadda indhaheedii baan ahay dadka waxa weeye xumaatadaan ka reebaa wanaaggana waa faraa hawsha hadda sida ay ku socoto wallaahi bilaahi tallaahi ceel madow bay ku dhacda ha laga soo saaro ilma adeerayaalow ha laga soo saaro waxa weeye ilmahan arooska qaranka waxa weeye lagula ordahayaa waxaa mudan ilmaha agoonta in dhulka laga qaado dadkan waxa weeye in waxa weeye la isku hago oo la isku hayo baa wanaagsan waxa weeye aad baan idiin salaamayaa khayr baan idiin rajaynayaa waxa weeye ninka la yidhaahdo xildhibaan cabdi jaamac jooqle iyo aniga dumaal qaran ha naloo sameeyo dumaal qaran dad islaam haddaad tihiin waa hadday meeshu run ay jirto wey ha naloo sameeyo aad baad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu arrintayda ha la sheergareeyo ummadda ha lala wadaago anugu xumaato ma wado wanaag baan wadaa xumaato ma wado waxa weeye sharafta ummadda soomaaliyeed baan u baahanahay ma raba in qabaa'isha soomaaliyeed laisku gooyo raallina kama ahay cabdi shiras jaamac jooqle iyo aniga laba qabiiloo laandheerahan ka dhalannay asna waa daarood anna nin sacadoo waxaana reeylowlaah dumaal qaran ha naloo sameeyo ninkii la gubay naagihiisii laba naagood buu ka tegaya mid ha dumaala anna mid baa dumaalahayaa sheekada hadday run tahay horyaahoy ummaddan yaan laisku gubin qabaa'ishaan laisku laynaya ha la joojiyo ha la sheergareeyo muuqaalkayga ha loo geeyo waxa weeye nimanka xildhibaanada waxa weeye hawshaan waxa weeye siyaasadaynhaya oo waxa weeye haddii ilaahay kuu idmahaya beenta iyo barabagaandada waddooyinka la taagan assalaamu calaykum waa walaalkiina waa xarraw nebi difaace assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu